daawadayaal soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidamo hor leh ku sii daabulaya gobolka Gado muxuu uga dan leeyahay ciidamadaas Jubbaland oo fariin adag oo hanjabaad ah u dirtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli ay Jubbaland dagaal kaga adkaatay xukuumadda Soomaaliya warkaas oo faahfaahsan iyo war kale oo dheer iyo xasaasi ayaa inay haynaa soo dhawaada marka hore haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo YouTube-keena subscribe dheh si ay ku soo gaaraan wararku leegaray sidoo kalena muuqaalka si share garay Jubbaland oo war ka soo saartay ciidamada uu Xasan Sheekh ku sii daabulayo gobolka Gado ayaa waxay soo saartay war saxaafadeedkan sidaan u dhigan waxay dhaheen eedeysane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali wada kala furfurka iyo qalqalgelinta amniga deegaanada nabadda ah ee Jubbaland ayadoo la og yahay cawaaqib xumadii uu kala kulmay dhalinyaradii uu ku soo qalday deegaanka Raas Kabooni degmooyinka gobolka Gado ayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu mar kale isku dayayaan in ay ka abuuraan qalalaase amni taas oo keeni karta in amnigu uu faraha ka sii baxo maadaama saraakiishii loogu talagalay in ay sugaan amniga loo adeegsan doono siyaasad gaar ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saareen Jubbaland odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Gado ayaa horay uga digay in aan la carqaladeyn amniga ay haystaanin shacabka reer Gado oo ay sabab u yihiin oo ay sabab u tahay ayaa lagu yiri dawladda Jubbaland ciidamadii loogu talagalay inay ilaaliyaan nafta maalka iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ayaa eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu waxay u adeegsanayaan inay ku dumiyaan nidaam dawli ah oo dhisan mana ahaan wax uu qabo dastuurka dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Jubbaland ka soo baxay waxa sidoo kale lagu yiri madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa horay u sheegay in Jubbaland ay u taagan tahay ilaalinta dastuurka dalka iyo kan Jubbaland wixii intaas ka soo harana ay iskaga filan tahay inay iska difaacdo ilaalisana amniga shacabka deegaanada degan Jubbaland ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay Jubbaland oo u muuqda mid fariin u sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena laga dareemayo inay tahay hanjabaad toos ah oo ah haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay soo galaan gobolka Gado inay kala kulmi karaanin fariintii ay kala kulmeen gobolka Raas Kabooni oo ciidamada Soomaaliya jab weyn ka soo gaaray kuwaas oo farxadkoodii xitaa gaaray dawladaha dariska ah sida Kenya uu gaaray taasna ay ka dhalantay sharaf darro ciidanka Soomaaliya ka soo gaartay